بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغيارتها ملك سجوكتان السلام يا دمانتين بو صاحبكي عبد الحكيم ماستيكو ولا ليال waxa weeye muuqaalkan hadii uu soo gaaro hala share gareeyo muuqaalkan waa jawaab ku socoto daahir cala sow iyo rag kale inta la hal maalo oo baraha bulshada waxaysan hubsanin iskaga soo hadaaqayo hala share gareeyo please waxaad ka codsanayaa qof kasta soo gaara asxaabtaada u share gareey sharta ku dadaala bas waxa weeye baraha bulshada ayaa waxaan ku arkayay caawa xalay iyo saaka aan ku arkay ayadoo la isla dhaxmarayo dagaalkii Guruceel xawaadla ka qayb qaatay xawaadla dadkii baabi'inayo nin la yiraahdo Baakay oo xawaadla ayaa dadkii xasuuqayo oo xataa meedadka soo qufayo dhaawici dhameystirayo guriyihii benziin ku shubayo baasuuqyaal iyo sabana la dhacayo balaaya la tirinaya meeshan Baakay okay maxamed Baakay goormo noqday baalki oo noqday xawaadle maxamed Baakay nin u deejana weeyo ciise mudulood goormo noqday xawaadle oo noqday waxa marka aan la yaabanahay aniga daahir cala sow oo nin weyn oo kala yaqaano dhaqanka qabiilada Soomaalida iyo sidii u kala degaan iyo shakhsiyaadka maanta yaani horbooday dawladdan aad u yaqaano in uu asagii maanta yiraahdo Baakay oo xawaadla oo argoosi u socdo ayaa Guruceel dadka iyo cayr ku laaynayo waxaan rabaa jawaabtan in daahir cala sow la gaarsiimo markii ugu horeyso jawaab degdegana waa looga fadhiyaa daahir cala sow warkaas waxaa la rabaa inuu ka soo jawaabo warkan iyo warkii hore uu yiribo daahir cala sow inuu ka soo jawaabo looga baahan yahay sababtoo beesha xawaadla meel buu uga dhacay horta warkiisii wax yar aan idinka maqashiyo daahir cala sow asoo hadlayo warkiisii wax yar aan idinka maqashiyo raali ahaada warkiisa waa ka hadalkiisa waa ka soo maqlaysan waa nin weyn ma waalna waa nin fiyow oo shaqeysto ganacsada wuxuu ku hadlayna waa maqlaysan Baakay oo xawaadla ayaa ilmihii gabdhihii iyo haweenkii iyo caruurtii cayr laaynayo ayuu yiri oo guriyihina baasiin ku bilbilayo gubayo waxa lagaaga baahan yahay daahiro wax badan horta ummaddu waa isku dirtay qabaa'ilka waa isku dirtay Soomaaliyeed haddana adigoo og inuu Baakay nin u deejano ciise mudulood oo inuu yahay adoo og ayaa waxa dusha u saartay waxa tiri nin xawaadla waaya tiri Baakay adigoo ka sheekeynayo 10 jeerna waa ku arkay oo Baakay u deejeen yaani wax uga sheegay waa ku arkay waana taqaana aqligan ma lidin dhahan ma lidin daahirow u deejaad yaani ujeedad ka leedahay warkan waxa rabtaa inaan labadan beelood oo dariska walaalaha inaan isku kiciso isku dirto isku gubtaa rabtaa sidaadaba adiga dhiiga daadanaya ayaa wax kugu jiraan halkaas ayaa macaash ka hesha laakiin annaga wanaaga ayaan ka macaashnaa
wanaagga ayaan wax ka helnaa wanaaggeeda danta noogu jirta annaga xumaan iyo qabiilo iskuma dirayno waxaanse ku sheegayaa laakiin baakaay waa la yaqaanaa maxamuud baakaay waa la yaqaanaa waa nin udojeena oo ciise mudulood ah adiga ma xawaadla ka dhigay aniga warkaan ma rabin horta inaan howlahan ka hadlo ma aanan rabin aniga inaan ka hadlo ma rabin labadan qabiil same bin horta aniga inaan ka hadlo ma raba dhexdooda laakiin warka adiga ayaa warkaan isoo geliyey warka waa maqlaya wiilka yarkaa shalay ka hadlaya gurceel waa maqlayay oo laay xawaadla arkay baakaay xawaadla waaye haddaana saan yeelin haddaana inta ka dhicin baabuurtoodii ay gudbin yuusan baakaay fakanin kan waaye oo ku hay canugaasna cunug iska yaro wuxuu ahay iska maran habaabsan uu ahay oo aan dadka kale aqoonin qabiilka laakiin adigoo baakaay yaqaano ninka la daari cali suubo inaa adiga warkaas tiraahdaa oo cunuga warkiisii aad soo qaadataa oo beelweynta xawaadle oo raalli aan ka ahayn dagaalka meesha ka socdo oo anigaana yani ugu liito aan ka hadlayo oo aan difaacayo reer gurceel ya inaad maanta yani tiraahdo xawaadla u soo kaba gashtay asagoo ciil u qabo beesha cayr dhul ay isku haystaan iyo deegaano ay ka dhexeeyaan asagoo aargoosi u socdo ayaa nin la yidhahda baakaay dagaalkii soo galo dadkii laynayaa tiri saraakiishii xawaadla way ka hadashay aqoon-yahanadiyaa ka hadlay xataa haweenkiyaa ka hadlay wax kale iska dhaafee haweenkiyaa ka hadlay habeen hore waxaa ka hadlaya waxay ahayd gabar xawaadlaha oo in cabdullaahi fiidow ina sheekh cabdullaahi fiidow oo qolooyinka hirshabeelle ah ayaa ka hadlaysay oo arrintaa ka hadlaysay gurceel waan soo qaatay weli xataa anaa soo qaatay xataa oo yani oo reaction ka bixinayo okay daahir oo marka waxaa laga rabaa warkaa inaa meel u yeesho warkan adigoo yani og inuu baakaay yahay nin udeejeen sababtaa u tiri waa xawaadle oo aad yani baraha bulshada aad soo dhigto warkaas daahiroo jawaabteeda adaa lagaa sugayaa midaas jawaabteeda adaa lagaa sugayaa midda kaleento beelaha habargidir iyo xawaadle waa dad eheloo dad walaalaa weeye waana dad yani wada dhasho wax badan ay ka dhexeeyaan wax badan way diriri jireen wax badanna waa isdili jireen ilaa iyo hadda way isdilaan oo aanan qabiil way isku dilaan laakiin hawshaan hadda socoto xawaadla shaqo kuma laha baakaay waa nin udejeena waa taliyaha guutada shanaad qaybta 7-aad ayuu haystaa qaybta 7-aadna waxaa haysta nin tradish liyaado abgaal waa taqaanaa shaqo kuma laha marka xawaadle dagaalkaa shaqo kuma lahan dagaalkaa dad baa wato farmaajo iyo tiimkiisaa wato xawaadle waa diiday wuuna ka soo horjeestay ya ilaa iyo hadda ayaan waxaan leenahay kuwa meesha ku dhimanayo wiilasha xawaadle afartaa meesha ku dhimanaysaa waxaan leenahay war ka joogo iskaga soo baxa annagaanaan ku qaylinayna marka askarina waa wax iska wadanayo askari soo bax amarka qaadaa ku filan laakiin daahirow nin weyn baa tahay waa nin waxaa tahay baraha bulshadana aad lagaaga yaqaano hadalkan waxaad ku keentay daahirow jawaabteedii lagaaga fadhiyaa adiga hadda Soomaaliya xawaadla laga rabaa inuu ka soo jawaabo wax garadkiisa xawaadla wuu hadlabo war baraha bulshada dhaxgal baraha bulshada gal xawaadla waa hadla intii wax garada saraakiil aqoon-yahano rag iyo dumar way hadleen dagaalkaasna mowqifka ay ka taagan yihiin way caddeeyeen wayna sheegeen laakiin adigoo yani daahirow ujeeddo gaara ka leh oo rabtid inaad isku soo fayso beelahan walaalaha ah haddii halkaas aad wax ka raadinaysid daahirow lagaaga hari maayo midaas xaqiiqatan ma lagaaga harayo edab daraad ku socotaa edab daraad yani hadalkaas ku tiri hadalkaasna hadal xawaadla qabta ma aha annagoo ka wada gubanayno ka wada qaylinayno ya inaa annaga maanta nagu soo celisaa nin maan annaga xataa noo dhalan inaad hadduu xataa baakaay xawaadla ahaan lahay wax garbay ahaan lahayd haddii xawaadla oo baakaay xawaadla ahaan lahay xoogaa waxbay noqon lahayd laakiin ninkii oo la yaqaano maxamuud baakaay oo la yaqaano nin udeejeen ah ya oo aad adiga laftigaada aad taqaanid inaad tiraahdo waa xawaadle taas weeye saaxiib midda yani aan kugu heesano waxaa rabaa inaan kasoo jawaabtaan rabaa daahir sida ugu dhaqsiyaha badan بليس هلا شرقريو هلا شرقريو إلما أدري ريالو مقال كان هلا شرقريو أنت صادق قعد صنايع عنيك دايرو جوابت دي عن كافر عن حقوق فدنا عنك جوابت أيان كافر أيان حقوق فدنا أديك وحلا حوالي كسو جواب سما هذا أدان جواب كارمنا هذا الجواب أيو خاربا حوالي كسو جواب صوبتات كتير حوالي دتك لاينيو باكا إن اللي رادو حوالي عيدا كو إيران كيمد بلدن كيمد وطودتك جماعة يو هذا اللي خاربا إنا ميلو بحس ها سومالي حتى هذا hadal aan loo fiirsan iyo caano aan fiiqsi loo dhimin feeree wax yeelayaan yiri marka hadalka uma aada fiirsan daahirow hadalka uma aada fiirsan marka jawaabteedii laga rabaa inaad jawaab ka bixisaa laga rabaa waafi
jawaab waafiya laga rabaa daahir marka waa islaamaya dhamaan meel kasoo joogta ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay marka hawshaas meesha ka socoto cid walba way garan kartaa xawaadle taaqo kuma lahan amarkiisa kama socdo mana meeshaas kama yani kama howlgali kara xawaadle waa islaamaya dhamaantiinba sina shar gareey muuqaalkan adinkoo mahadsan walaalayaal